daawadayaal ku soo dhawaada warka idaacadda kulan ee magaalada Beledweyne madaxweynayaasha dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya oo maalintii saddexaad shir uga socda magaalada Muqdisho ayaa kulan la leh wakiilada beesha caalamka kulanka ayaa waxa goobjoog ka ah madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland kuwaas oo dhammaantood maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho madaxda dawlad goboleedyada iyo wakiilada beesha caalamka ayaa kulankooda ugu hadlaya xal u helidda marxaladda dalka uu marayo gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo sidoo kale qabsoomidda shirweynaha madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada madaxda dawlad goboleedyada ayaa sidoo kale shirkooda waxa la filayaa in uu ku biiro ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble isla markaana ay kaga wada hadlaan sida uu u qabsoomi lahaa shirka isugu imaanayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada si xal loogu helo heesada ka taagan arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya dhanka kale wararka kale oo aan idin hayno waxa kamid ah maanta ayaa loo balansanaa in uu xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho uu ka qabsoomo kulanka golaha shacabka oo loo hadal hayay hase yeeshee kulankaas oo dib loo dhigay guddoonka golaha shacabka ayaa ajadaha kulanka maanta loo balansanaa ku sheegay caabuqa COVID-19 iyo codayn laba xubnood oo guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha balse xalay xilli dambe ayay shaaciyeen in kulanka dib loogu dhigay ilaa iyo maalinta Arbacada wararka la helayo ayaa sheegaya in sababta dib kulanka loogu dhigay ay tahay kadib wada hadallo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed ee la yeesheen madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo cadaadis ka yimid qaar kamid ah wakiilada beesha caalamka oo ka cabsi qabay in qalalaas siyaasadeed uu dhaco qaar kamid ah xildhibaanada mucaaradka ayaa sheegay in ujeedka kulanka golaha uu yahay in muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dawladda oo waqtigoodu dhamaaday sabdigiina ay baajiyeen kulan guddoonka golaha shacabka oo sheegay in looga hadlayay xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya aad ka u hareeyay balse warqadda soo baxday habeennimadii ayaa lagu sheegay in 5 kulan laga joojiyay 15 xildhibaan oo kamid ah xildhibaanada waqtiga uu ka dhamaaday beesha caalamka ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku cadaadinaysa in uusan dalka ka bixin isla markaana la sheegay in uu u ambabaxayo magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya si uu halkaasi uga soo kulmo madaxweynaha waddanka Eritrea Isaias Afwerki iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed beesha caalamka ayaa isku cadaadinaysa madaxweynaha Soomaaliya in uusan Muqdisho ka bixin ilaa iyo inta xal laga helayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya qoraalka loo diray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ahaa mid la diblomaasiyadeeyay isla markaana si hoose loogu dusiyay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana loogu digay in uu ka baxo magaalada Muqdisho si uu ugu safro waddanka Itoobiya